Soomaalidu waxa weeyaan dad qab leh ama isla weyn. waa qoyska ugu halgan badan fi taariikh 12 qarni bay Soomaalidu dagaalamaysaa 12 qarni weligood hal qarni ma dhamaan iyagu jihaadin fi taariikh ummadihi kale wadan islaan ahaan jiray gaaladu qabsatay way isdiifaanba Soomaalidu waa qoys la kado ilaa mingan taagan way qoys la kado way sida Andalus loo qabsaday ayaa loo qabsaday bariga Afrika oo dhan Soomaaliya loo qabsaday awood lagu bixiyay annagu Afrikaan dagaalamayna Boortaqiis nagu soo duulay Axmed Gure mujaahidka caalamka ayaa dilay qarniga 10aad halgami jiray Boortaqiis baad markuu Axmaara samriyay oo hilibka cayrin baray oo maqala ugu tagay oo aksum ka saaray oo uu rabo inuu badda ku daro Faransiis baa soo duulay Soomaalidu waxay ahayn dad aad iyo aad u dagaalyahanina iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haraga gariga oo waxay u dagaalami jireen laba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaaway amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taala الإمام قلقشنتي كتاب كيس صبح الأعشى وقرن كيستداد الصومالي وكورمي وحول وتذكر بني آدم كي يكون الجبل كا تذكر عقل بدون يبول وأذكياء بول كورمو كورمي وحكورمي سيد بقصون بدي كورمي تضرب بقول سنة كور بولي الصومالي ذو وضد جنسي كلا أو كعقل بدون بشر كلنا ولي ما طيب إلى عام كسيد ما طيب سماه dadka Soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yiri waxa weey dad aan sinaba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani Afrikada ah hadii ay tahay maskax iyo geesinimada horta waxay hayeen dad raganimo leh indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo muhiimadu waxa weeye qoys weligood awood in loo sheegto meen oo ma hoggaansamaan cadow uma hoggaansamaan wuxuu waa niman madmadow dhudhuuban oo sanqo dhudhuuban oo mooday inay carab ku jirto laakiin xagga dadnimada wuxuu laakiinahum ashidaa'ul ba'sa a'izzabu waxa ay Soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yiri iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi ugu horeeyay oo kala ah gaala iyo baajuun Afrikaanku waxay idin yaqaanaan yuhuudda Afrika idin yaqaanaan xagga xisaabta iyo aqli badnida imtixaanka waxaad isku xukumi laadihiin u heshiin laadin waa aqliga faraha badan ee zaa'idka ah ma aha buu yiri dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato wax yar muddo ka dambeysay waqtigii Sir Arthur Hardinge ayaa Sir Charles Eliot oo ahaa gudoomiyihii Ingiriiska ee bariga Afrika ayaa waxa uu faalo ku sheegay in Soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah Ingiriiskii amba kaba sii sareeya shakhsiyadda qofka Soomaaliga ah uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go'o lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer Yurub ee ka shaqaynayay Somaliland oo ay hadal hayn jireen amaan iyo ceebiba waa jireen shakhsiyadda Soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel wada degin fudayd iyo saldhiga shalaan hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo waxa la rabaa dadku inta li soo aqli badan iyo shacab la hogaamiyo inay noqdaan ardayga Soomaaliga ka yar 20 jirka iyo odayga 8 jirka isku waxbay dareemahayaan way masri kartid indhaha ma qaban kartid adeer waa ku fahmi ku leeyahay sidaasi darteed Soomaalidii bariyaha cadan soo gali jirtay mas'uuliyiintii Ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray waxa jirtay inaan laba daneyn jirin mustaqbalka imani doona ciiweynina waa jirtay waxa jirtay is amaanid xad dhaaf leh iyo sharaf weyni aan bini aadamka cidiba ka sharaf weynayn qadaris xumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo agbaro qof Soomaali ah tiyo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka qabka qofka Soomaaliga ah inta la sii buunbuuniyay oo lagu sii dardaray ayaa waxa dhacaysa in aan cidiba wax u sheegi kari jirin waayo isagaaba isla toosan oo dacu weyn oo laga soo galo uma banayn jirin cidnaba ummadu bini aadamka dagaalada iyo kuwa islaamka kale walaalaheedayo waxay ku rooyihiin dabaqa saro oo wax hogaamisa oo aqli badan waxay leeyihiin allow saalo waxa la yiri indhii waa kuma indhii waa riyacad baa la yiri arigu markuu socyaha hogaamiyo ariga meeshu maraayo iduu waa iska dabasho waa raciyad shacab weey riyaha hogaamiyo idinku waxa weey kulligu maxaa tiin riyad wada noqotay marka qoomkan waa qoom inta soo halgamaya tabar baa halka dhigtay waxa ay jeclaan jireen Soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba la isula tago ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah la isku hareero Soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo hadana wax weyn oo gobonimo leh
oo waxa uu diyaar noqon jiray inuu dhiiggiisa u qubo dhulkiisa. waxa uu dhimani jiray isaga oo sidaa u arkaya nafta ka sii gurmaysa oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa, oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay. wax yar buu ka warwari jiray nabarrada ku dhacaya. nabarradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen. ninkii dhulmareenka ahaa ee la odhan jiray kabtan J.H. Speake ayaa isaga oo ka hadlaya Soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman Soomaaliyeed oo aanay nabro ku oolin, oo nabarrada qaarkood sida ay u ba'naayeen aad ka yaabaysay sida uu uga kacay. saraakiishii reer Yurub ayaa waxay ogaadeen haddii Soomaalida basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaaradda yar ee kulul ay leeyihiin, waxay Soomaalidu noqon jireen bay yidhaahdeen booliis iyo militari wanaagsan. inkasta oo marnaba aanay oggolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka kuu soo leexinaynin. xagga dhar xidhashada Soomaalidu amba militari ha ku jiro, amba ha ku taagnaado dirayskii Ingiriiska, amba garan ha xidhnaado, amba surwaal gaaban, amba dharkii hiddaha u ahaa, amba toob, amba mara khayli ah oo uu ku yaalo shagaarkii sida dharka Scottishka ah oo weliba aad loo jeclaa haddii ay ku taalo shaambaddii warshadda dharka samayn jirtay ee Manchester, ama marada la soo daray balay milmil ku yaalla oo biyo dhooqa leh oo midabka huruudda ah yeeshay. wax kastaba ha soo gashadee Soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray ama qaabkoodu ay ishu qabanayso oo dirays qaad fiican. tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo, isagii oo galkii seefaha noocyada kale lahaa ee tolkiis gacan ku sita, ta kalena gaashaan qaabka wareegga oo kale leh oo ka samaysan haragga geriga amba wiisha amba goodirka. gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro oo inta suun haraga dacallada loogu xidhay qoorta laga soo lulay oo halkaasin barbartaa sidaa uga soo dhacay. xagga diinta Soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa suni, walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay, sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinayo intaan meel baad leh loo guurin, ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto. xagga haweenka sida loola macaamilo Soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd. haweenka xijaab laguma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen. Soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran, nasiina la'aan, iyagii oo socoteen jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray. fikradda ninka Soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof la soo barbardhigo oo lala simo ha jooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira. haddana iyada oo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxaa kaloo jirtay madax bannaani iyo kelikelinimo iyo martigelin ama wax tashiirid amba kala reebreebid joogto u ahayd noloshiisa. halisi meel ay jirto kama gabban jirin, tiyo xataa marmar lagu nafwaayayo oo geesinimo iyo wax uu laha adkaan wax la barbardhigaa aanay jirin. dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu u dhexeeya lamadegaan iyo kayngaab odaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray. sida lamadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu ugu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay.